Assalaamu calaykum. Dal maanta ka horreeya dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba dalkii soo gumaystay. Dal 70 sano ka hor ka mid ah kuwa dunida ugu faqiirsan. Maantana awoodda dunida hogaaminaysa dhaqaale ahaan, ciidan ahaan iyo aqoon ahaanba. Ku soo dhowaada macluumaad ku saabsan dalka India. Hindiya waxay dhacdaa koonfurta qaaradda Aasiya. Waa dalka toddobaad ee caalamka ugu baaxadda weyn, ahna kan saddexaad ee guud ahaan qaaradda Aasiya. Sidoo kale waa dalka labaad ee dunida ugu dadka badan. Waxaa ku nool 1.3 bilyan oo qof. Waa ku dhowaad 5 meelood meel bulshada dunida inay ku nooshahay dalka Hindiya. Sanadii 1948 ayay ka qaateen xornimada boqortooyada Britishka. Xilligaa Hindiya waxay ahayd tiro ahaan dad kor u dhaafaya 300 oo milyan oo qof. 16 boqolkiiba keliya ayaa wax qori karay waxna akhrin karay bulshada reer Hindiya xilligaas. Faqriga ayaa gaarsiisanaa wax ka badan 70%. Intaa wixii ka dambeeyay Hindiya waxay qaadatay waddo ka dhigtay inay noqoto awoodda maanta jaangoysa xaaladda dunida. Maanta Hindiya waa dalka shanaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Waxay ka dhaqaale badan tahay UK oo ah dalkii soo gumaystay. Sanadii 2018 ayay booska kala baxday dalkaas. Sidoo kale guud ahaan qaaradda Afrika ayay ka dhaqaale badan tahay. Waa mid ka mid ah wadamada dhaqaalahoodu aadka u korayo. Waxaa la rajaynayaa 10 sano ee soo socota inay India noqoto dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. 30 sano ka hor UK dhaqaalaheedu waxa uu dhammaa 1 trilyan, halka Hindiya uu ahaa 340 bilyan. Maantase Hindiya dhaqaalaheedu waa 3.2 trilyan. halka UK uu dhaqaalaheedu yahay 2.9 trilyan. Dhanka aqoonta Hindiya waxay ka soo tagtay darajo hooseysa oo ah 16 boqolkiiba. Maanta waa 74% dadkeedu waa kuwa wax bartay. Sidoo kale waxay leedahay jaamacadaha ugu sarreeya Aasiya iyo guud ahaan dunida. Dakhli sanadeedka soo gala qofka Indiyaanka celilis ahaan maanta waa $9,000, halka 70 sano ka hor uu ahaa wax ka yar $70. Waa mid ka mid ah wadamada ay ku nool yihiin bulshooyin ku kala duwan afka, dhaqanka, diinta, isirka, midabka, cuntooyinka iyo deegaankaba. Waxaa looga hadlaa dalkaas in ka badan 122 luuqadood oo luuqadda ugu yar ay ku hadlaan wax ka badan 10,000 oo qof. Sidoo kale waxaa ku nool in ka badan 2,000 oo qowmiyadood oo kala duwan. Waa dal kulansaday dhammaan diimaha waaweyn ee dunida ka jira. 80 boqolkiiba dadka India ku nool waa Hindu, halka 14 boqolkiiba ay yihiin Islaam. Waana dalka ay ku nool yihiin muslimiinta saddexaad ee ugu badan caalamka kadib Indonesia iyo Pakistan. Faqriga Hindiya waxa uu ka yahay maanta wax ka yar 17 boqolkiiba, halka faqriga daran uu yahay wax ka hooseeya 6%. Aad bay ula dagaalameen 10 sano ee ugu dambeeyay dowladda dalkaas, 250 milyan ay xeyndaabka faqriga ka saartay. Waxaa ku nool maanta in ka badan 139 bilyaneer, waa in 10 jeer ka badan inta ku nool qaaradda Afrika oo idil. Waana dalka saddexaad ee bilyaneerada ugu badan ay ka soo jeedaan caalamka. Waa dal aad u awood badan oo saameyn muuqata ku leh mandiqada uu dhaco. Waa dalka afraad ee ugu ciidamada xooggan dunida. Waa mid ku hubaysan hubka waxgumaada ee nukliyeerka. Sidoo kalena ka mid ah 5 dal ee dhaqaalaha ugu badan ku baxsha ciidamadooda. Dalku waxa uu ka kooban yahay 29 gobol. Gobolka Maharashtra ayaa ka dhaqaale badan guud ahaan dalka Pakistan oo deris la ah. Halka gobolka Uttar Pradesh uu ka dhaqaale badan yahay isku darka UK, Germany, Spain iyo guud ahaan waddanka Ruushka. Waxa uu sidoo kale ka dhaqaale badan yahay dalka Masar.